Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal, ku soo dhawaada channelkeena Raadraac. Magacaygu waa Aftaax. Maanta waxaynu ka hadlaynaa buugga la magac baxay 48 xeer ee awoodda ee uu qoray Robert Greene. Si aad u yeelato awood, waxaad u baahan tahay inaad baratid xeerarka awoodda. Sidaas darteed, muuqaalkan waxaynu ku gorfaynaynaa buugga 48 qaanuun ee awoodda oo ka mid ah buugaagta ugu muhiimsan uguna iibsiga badan ee laga qoray awoodda. Halka dadyowga qaarna ayba ku tilmaamaan inuu yahay nooc cusub ee buugga The Braces ee uu qoray Machiavelli. Buuggeena maanta waxa uu ku dhisan yahay 48 qaanuun ama 48 qodob ama 48 saldhig oo uu mid waliba sharax gooniye ka bixinayo. Waxaan halkan kugula wadaagi doonaa dabcan qaar ka mid ah 48 qodob, dhammaantood lama soo wada bandhigi karo. Haddaba si toos ah aan u gudagalno buuggeena maanta annagoo soo qaadanayna qaanuunka ugu horeeya. Wuxuu ku leeyahay badanaa hadalkaagu yaanu badan. Hadalkaagu yaanu ka badan intii loo baahnaa. Inta badan ee uu hadalkaagu yar yahay waa inta badan ee aad yeelanayso awood. Wuxuu leeyahay qoraagu dadku dabcan way ixtiraamaan kana baqaan qadariyaan waxa qarsoon ee aanay aqoonin. Nasteexada ugu muhiimsan ee qaanuunkaasi waa ha noqonin buug furan. Xeerka labaad, qoraaga buuggu waxa uu leeyahay ilaali sumcadaada. Sumcadaadu waa udubdhaxaadka awooddaada. Waa shayga ugu muhiimsan haddii aad rabtid inaad awood yeelatid ay qasabka tahay inaad xitaa dhiigaaga u hurto sidii aad u ilaashan lahayd. Sida uu leeyahay qoraaga buuggu, sumcadu waa dhagaxa aasaaska u ah wax walba. Hanuuni maano qaanuunka xiga. Wuxuuna leeyahay qari dareemahaaga. Badanaa ka dareemahaaga kuwa aan la aqoonsan karin oo ay adag tahay in la fahmo. Sababtoo ah dadku ma jecla qofka mar walba mashaacirtiisa iyo waxa uu dareemayo soo bandhiga. Hanuuni maano sidoo kale qaanuunka xiga. Waxauna leeyahay dadku waxay ka aaminsan yihiin micno ma laha. Waxa aad naftaada ka aaminsan tahay ayaa ah waxa macnaha sameynaya kaana dhigay mid guuleysta. Wuxuu leeyahay qoraagu buuggu, wax walba aragtida ayaa lagu qiimeeyaa. Naftaada ka dhig mid soo jiidasho leh si ay aqbalaadu u badato. Wuxuu leeyahay qoraagu buuggu, guuleyso adigoo ficil sameynaya, ha ku guuleysan adigoo murmaya. Muranka iyo cadho muujintu waxay badbaadin karaan cadowgaaga. Bedel fikradahaaga, ficilkaaguna ha hadlo. Wuxuu leeyahay qoraagu, ka fogow caabuqa farxad la'aanta iyo nasiib darrada. Dareenada xunxun waxay noqon karaan xanuuno, waxayna kaa luminayaan awoodahaaga. Wuxuu leeyahay qoraagu, baro sidii dadku ay kuugu tiirsanaan lahaayeen. Waa inaad dadka ka dhigtaa kuwo kuu baahan, isla markaa ay noqdaan kuwo kugu tiirsan. Waxay soo gelayaan shabaqaaga, waxaad rabtana way kuu qabanayaan. Wuxuu leeyahay qoraagu, isticmaal daacadnimo xadidan si aad hubka uga dhigto cadowgaaga. Baro inaad bixiso ka hor inta aanad qaadan. Waa hab aad cadowgaaga ku hanan karto. Hanuuni maadna sidoo kale qaanuunka xiga. Markaad wax weydiisanayso, ka dhig waxa aad weydiisanayso mid iyagana dan ugu jirto. Wuxuu leeyahay qoraagu, u muuqo mid aan la qeexi karin. Ka dhig go'aamada aad qaadanayso kuwa aan la sii sheegi karin. Wuxuu leeyahay qoraagu, naftaada dib u habee. Ha aqbalin doorka ay dadku kaa aaminayaan. Naftaada baro halkii ay dadku kuu samayn lahaayeen wejiyo badan. Dareemahaagana waa inaad xakamaysaa. Qaanuunka xiga wuxuu ku leeyahay waa inaad gacmahaaga nadiifisaa. Iska ilaali caadooyinka xunxun. Sida lagu arkaa waxay ku xidhan tahay waxa aad samaynayso. Isticmaal inaad eedda iska duudo oo aan dembi lagugu qaban. Qaanuunka xiga waxa uu ku leeyahay ficiladaada ku salee dhiiranaan. Waa caado aad u baahan tahay inaad barato dhiiranaantu. Noqo qof dhiiran oo wax walba qaban kara si aad awood u yeelato dadka dhexdooda. Qaanuunka xiga waxa uu ku leeyahay ka dhig guulahaaga kuwo fudud. Cidna ha u sheegin sida aad ku gaadhay guulaha iyo siraha aad isticmaashay. Waxay arrintaasi kaa dhigaysaa inaad haysato awood qarsoon oo aan cidina haysan. Qaanuunka xiga waxa uu ku leeyahay weerar arijirka. Arigu wuu kala yaaci doonaa. Waxaa wanaagsan inaad ogaato kooxda hoggaankeeda si aad awoodooda u wiiqdo. Koox walba waxay leedahay hal qof ama laba maamule. Waxaadna joojin kartaa awoodda ay kooxda ku maamulayaan. Qaanuunka xiga ahna qaanuunkeena ugu dambeeya waxa uu ku leeyahay guusha haddii aad gaadho ha israaraacin. Ka sii gudub oo qorshe kala samee. Waxaan rajaynayaa qodobadan aan ka soo hadalnay ee buuggeena maanta aad wax ka faa'iiday. Mawduuceena maanta intan ayuu ku eegyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.